بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسنا فيتوريا سيمبر غاياش waxaan rabaa maantu inaan dhalinyarada waxyaalo badan u sheego, fanka u sheego, iyo labada Soomaali markii la isku daray ayaan wax xasuusinayaa dadkan. waxaan xasuusinayaa dib ugu laabta YouTube videogii marxuumka Allah yarxama Maxamed Ibrahim Cigaal uu ku soo hadlay. wuxuu yiri berigii Muqdisho la isku darsamayay ayaan Muqdisho tagnuu yiri annagoo ah odayaashii dalka hadda la magac baxay Soomaaliland oo waqooyi galbeed Soomaaliya ahayd oo laba go oo caawlan sita. in Cigaal wuxuu yiri waxaa nagu soo dhaweeyay chairmanka SYL waaga haystay Xaaji Sheekh Ciise, nin aad u wanaagsan oo mutacallima oo wax bartay ayaa soo dhaweeyay. isla markii waxaan aragnay yiri markaan ka degnay Muqdisho uu chairmankana qaabilay annagoo laba go cawalan sidano waqooyiga laba go ay xirtaan go caro hoos ka xirtay go ay saartaan. waxaan u tagnay yiri ummad degan daaro cadcad aan weligan waqooyi ku arag, xeeb liida ah oo guri Sheekh Ciise la dejiyay. raggaan u tagnayna waxay gashnaayeen uu yiri suurad cadcad, koofiyado qurux badan iyo garawaati baa u xirnaa neegteen iyo fudushaariga gashnaayeen. markaasaan aragnay waxay ka dhigan tahay dowladnimada. meel qurux badan oo Muqdisho aheedaana lagu casumuu yiri. waa markii ugu horeysay oo anaa isku haystanin madowga waagii Ingiriiska ma lahayn maqaayado Hargeysa oo nala geeyo yiri restaurant Talyaani leeyahay oo nala diyaaf gareeyey. marka waxaan rabaa inaan u sheego ninkan cawlan geeljiraha ah ee Cabdigood yidhaahaan. Cabdigood waxaan u sheegayaa weligii horto ma maqal wax la dhahaa orchestra, koox musica tunta. hadduu gitaarki yahay, hadduu basski yahay, hadduu saxophoneki yahay, hadduu organki yahay, hadduu battery yahay. Soomaaliya waxaa jiray kooxyo kala duwan oo heer sare ah oo hadday jazz tahay, hadday funky music tahay, hadday pop tahay, hadday rock and roll tahay, wax walba tumi jiray. heesaha Soomaalina tumi jiray. waxaan xasuusinayaa halkee kaga tagteen kooxdii la oran jiray Shareero uu Axmed Naaji madaxda ka ahaa, uu abwaankii heesaagii weynaa ee heesaha Ingiriiska ku fiican, Maraykanka ku fiican, Maxamed Cabdalla Jeeri ayaa ku jiray. ilmo Naaji oo badanaa ku jiray. Axmed Naaji ku jiray, Naaji Allah yarxama, Saciid Naaji ku jiray, waxaa ku jiray yarkii boongaha tumayay Cumar. way badnaayeen. waxaa kaloo jirtay koox kaloo dhalinyarada ah oo iyadana iftin la dhaho, Shankaroone iyo Shankar iyo rag badan oo wada shaac ka bilaabto ku jireen, iyadana way jirtay. waxaa kaloo jiray koox la yidhaaho Somali Jazz oo iyadana orchestra music tunta. maanta oo 21 century lagu jira Hargeysa kama helaysid orchestra. nin walba laptop gaaw computerku ku heesaa BK wax walba. Soomaaliya fanaaniinta waxay ku heesi jireen orchestra sidii James Brown ayay masoo hor istaagi jireen. waxay la socon jireen casriga Yurub waxa lagu heesiyo Maraykanka. oo waxaan ka hadlayaa 60meeyadii, waxaan ka hadlayaa 70meeyadii, waxaan ka hadlayaa 80meeyadii. dhalinyarada rabaa inaan waxbaro. maanta waxaad leedihiin xidigaha geeska nin gitaar garaaci karo kuma jiro. macalbiika gitaar ma garaaci karo. oo libiska hadday baranayaanoo 5 kilomitir aad ka arkaysaa badownimadooda. Cabdigood wuxuu ka sheekeynayaa fanku ka sheekeynayaa. maanta haddii la wareesto la yidhaaho Barry White ma maqasho, weligii ma maqlo. fanku wuxuu heestaa gacan libaax iyo ood weyne heesaha lagu soo qoru fan u heestaa horta. marka waxa waaye maantu soo wareeg
jabuuti unbaa muqdisho u dhowaan karto ruudi etoobiya ku yaallo wada night club ku yaallo wada diskoteek ku yaallo taa waa xadaaradii ilbaxnimada xeeb bay leeyihiin batalaale berbera makhaayad aad raashin ku cuntid kuma taallo ilaa hadda 21 century siigaa ka dhacaysa burcay leeyihiin siigaa ka dhacaysa iyo bus iyo boor iyo makhaayadaad tagtidba tixsigaa duulay booramay leeyihiin iyadana sidoo kale zeylac oo ah meel qurux badan hal hotel kama dhisno hal guri kama dhisno way burbursanta waxaa moodaa xaafadii mexicaanka maanta 27 sano ayay muqdisho burbur iyo qarax ku jirtaa makala mukarrama la qarxinaya hotel jaziira la qarxinaya meel la qarxinaya sidii lubnaan ay dadka xadaaridiin oo mar kale dib loo dhisaa dagaal geeri abaaro dadkii way heesayeen dadkii way faraxsan yihiin muqdisho haddaad saa u socotid waxaad oranaysaa meeshan macroos baa ka jira dumarkoo cabaayadihii ugu dambeeya ku wada xijaaban marka waxa weeye dhalinyarada ee reer somaliland mid baa nii sheegaya ha isku darina haddaad hawiye ciil u qabtiin ama daalood ciil u qabtiin ha taabanina reer xamarka ha ka hadlina reer xamar waa kuwii libisni baray reer xamar islaamihiina saako u tagi jireen iyagoo gorgoro durac la xirto waaweyn islaamihiina ay dirac bareen iyagii reer jabuuti maxay ka hadlayaan somaliland dadkaan haysan biyo ee cabaan ma biyo isku dhaqaan horta leh ma laho weeyaan naag walba korkaaga ka nuureen nin walba korkaaga ka nuureen hoostuu ka uraya ma istinjooda xataa biyo ma jiro marka waxaan leeyahay waa ku celcelin geel indhakuul muxuu ka kasaa meesha muqdisho waxay ahayd paradise waxay ahayd janno centuries aqalada reer xamarku waa jazuur waa gratijeel cad oo dhisan oo caano geel lagu dhisay marka haddaad muqdisho ka soo qaadaysid daaroodkii shalay yimid iyo nimankan baadiyaha ka yimid ee shalay shaararka gastay afgaan dee horta waa khaldantiin dadka kala barta adinku waxaad tidhahdeen wixii muqdisho ka yimaado waa sankadhuudhi waa isku dartiin dadka sankadhuudhigana adinku nigu badan yahay anigu waa yaababa dumarka reer waqooyi waa qurux badan yihiin maasha allah raggii waxay u egyihiin addoomo war ma aabbayaal kala duwanaa nin dhalay waxaan kaloo aan halka raacinayaa aan maanta soo xuseeyaa waxa keliya niga baranay waa laantaa jaadkoon ilaa yurub ku cunaynoon deen kara maxaa dhacay talyaani wuxuu yidhaha sertu amico zolpica imparia zopicare soomaali khaldaan waarana noo yimid oo siinaa iyo meel walba jaadku kala jaadkiyaadna barteen maxaa kalena barteen waxaa kaloo noola timaadeen oo berigiisii aad barnilaga gooy diintaad caan jirteen dad islaam isku sheegay oo dhahayo diintaada waxaa ku sameeya diintaasaa yeel ka yeel adinku unbaa nilaga arkay waxaa nilii dilay dagaalka keenay waxaa weeye caradii ilaaha nigu dhacday meesha keliya aad ku tumatiin waa fucking street waa waddadii wasmadaad qabtiin meel ku taalla afrika mari waa wax laga xishoodo marka annaga waxaani leenahay waxana laga sheegaba way iska yartahay reer xamarku waa xamar cadde reer xamarku dhinacigaalaa sheegay wuxuu yidhi berigiyaan muqdisho tagnay waxaan tagnay anagoo 2 go' coolan sidno niman dhanoo dowlad isku sheegayo wax soo barto ayaa go'yaal sitay kuwii baan kaba u gelinay surwaal u gelinay shaar u gelinay dad ka soo saarnay horta marka waxaan leeyahay dhalinyarada barta shareero barta gala youtube-ku aad ka helaysin somali jazz barta iftin barta wax entertainment la dhaho dhan muqdishaa loogu imaanayo waxaa jiray kooxo kubadda cayaaro hargeysa gobollada unbaaba qasab balooni lagu dheersiinay waxaa jiray naadiga LLBB jeeyo waxaa jiray naadigii munashiibia waxaa jiray naadigii gaadiidka waxaa jiray horseed wuxuu ahaa waddan entertainment waxaa jiray basketballka jeeyo basketball ay dheelaysay waxaa jiray tennisaa la dheelayay waxaa la dheelayay pingpong waxaa la dheelayay dabaasha waxaan ahayn waddan dad xadaariyiina oo tan iyo waagii Vasco da Gama adduunka wax la qaybsanay waxaan ahayn dad curubo meesha ku taallay 4 dhagax ku yaallo waxa ahayd dad loo yimaado ee transshipment lagu suubiyo addoomadii Mareykanka la geyn jiray halkaa la saari jiray 4 dhagax aad ku arkaysin xeebta jaziira waxay ahayd
mid inan yar oo qaabana la saaray mid inan yar mid nin weyn mid naag oo meesha addoommada lagu baayactami jiro marka dadkan waa dad xadaaradu ku dheer tahay xeebtaa aad u jeedin abaawees suuq baa ku yaali jiray kawanka malaga hoostiis badda hoosta xeebta waxaa imaan jiray maraakiibta boqortooyada Spain iyo wax walbo oo meeshaas waxa laga gadan jiray hadduu yahay cuud hadduu yahay uusi hadduu yahay jaawi hadduu yahay cadaro hadduu yahay wax walbo hadduu yahay xariirta China laga keenay ayaa ilaa Masar qaadan jiray Egypt Cleopatra qaadan jirtay marka taariikhdu Muqdisho maaha taariikhdu Hargeysa taariikhdu Muqdisho maaha taariikhda Burco taariikhdu Muqdisho maaha taariikhda Boorame oo weli tuula ah taariikhda Muqdisho maaha taariikhda Burco oo weli cawlan maaha Buuhoodle oo weli laamiyari ka dhisan maaha Garowe oo weli darin lagu fariisto taariikhda Muqdisho waa taariikh aad u sareysa haskara Victoria Central مع السلامة